maamulka cusub ee golaha deegaanka degmada Garadaga oo halkan oo xarunta dawladda hoose ee degmada Garadaga maanta kulan warbaahineed ku qabtay ayaa hambalyo u diray shirguddoonka cusub ee golaha wakiilada Soomaaliland oo isla saaka ay mudanayaasha golaha baarlamaanka Soomaaliland u doorteen Cabdirasaaq Khaliife iyo Saciid Miro Faarax iyo sidoo kale Ali Xaamud Jibriil waxayna golaha deegaanka degmada Garadaga oo uu hogaaminayo maayirka degmadaasi ay ugu baaqeen shirguddoonka cusub ee golaha wakiilada Soomaaliland inay si cadaalad ah ugu shaqeeyaan qarankan Soomaaliland waan u hambalyeynaa kuwa la doortay iyo kuwa waayba waan u hambalyeynaa Cabdirasaaq Khaliif waxaan leeyahay waxa halkan kaaga salaameynaa golihii deegaanka ee Garadag iyo dadweynihii Garadag oo aan mikrofoonka soo wada gelin oo kula hambalyo waxaanu hambalyeynayaa sida halkan hore looga sheegay odaydii ka soo shaqeeyay Soomaaliland ee jagooyinka wada hayay kii maxkamadda guurtida kii hore baarlamaanka joogi jiray runtii haddaanay dadaalin maanta oo aanay gacan qabanin sidii ay wixii tabaqtimaadaba ay u baqtiin lahaayeen may suura gasheen inuu dhaco foodka wanaagsani wax kuwa la doortay kuwa kaadhayba waxaan leeyahay hambalyo iyo kuwii wax doortay iyo kuwa wax dooranba waxaan kaloo ku mahad celinaynaa sidii wanaagsanayd ee baarlamaanka la doortay cusub ee u soo fadhiisteen iyo sidii wanaagsanayd u codeeyeen waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynaynaa dhammaan ragga la doortay ee ku guuleystay doorashadii maanta ka dhacday 3 bisha 8aad golaha baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leenahay hambalyo dhammaantiin Cabdirasaaq Khaliif Axmed gudoomiye ku-xigeenka golaha wakiilada gudoomiye ku-xigeenka koowaad Saciid Miro Faarax Giire Ali Xaamud Jibriil dhammaantiin waxaan leenahay hambalyo Ilaahay xilka idinku asuro idin fududeeyo inta laga guuleystana waxaan leeyahay waa mahadsantiin aad iyo aad badan ku hambalyeynaa insha Allah waxaan idin rajaynaynaa guul iyo gamcays qab gudoomiyaha baarlamaanka Cabdirasaaq Khaliif gudoomiye ku-xigeenka koowaad Saciid Miro Faarax iyo Ali Xaamud Jibriil oo gudoomiye ku-xigeenka labaad intaba aad iyo aad baan hambalyeynayaa waxaan kaloo hambalyeynayaa Faratoon iyo Cumar Jaac Faarax iyo Qodax saddexdaana waan hambalyeynayaa sida fiican shirguddoonka cusub ee golaha baarlamaanka golaha wakiilada Soomaaliland ee la doortay waxaan aad iyo aad u hambalyeynayaa sidii sharafta ku dheehnayd ee ay u doorteen saddexda xubnood ee gudoominaya golaha ugu horeeyay golaha Cabdirasaaq Khaliif Axmed gudoomiye ku-xigeenka koowaad Saciid Miro Faarax gudoomiye ku-xigeenka labaad Ali Xaamud Jibriil waxaan leenahay maanta halkan waa idinka soo hambalyeynaa waana idinku ducaynaynaa in Ilaahay xilka idinku asturo fariintani maanta waa hambalyo iyo duco xilka in Ilaahay idinku asturo idinku soo golaha baarlamaanka ee cusub ee la doortay maanta iyaguna doortay shirguddoonkoodii ee u doortay sida isku tanaasulka leh sida ay sharaftu ku jirto sida kala dambeynta leh runtii waxaanu aad iyo aad u sii bogaadinaynaa saddexda gudoomiyaha maxkamadda sare aadan xaaji cali gudoomiyaha golaha guurtida Salebaan Maxamuud Aadan gudoomiyihii hore ee golaha baarlamaanka Baashe Maxamed Faarax Maxamed Gumburi Bulsho TV Garadaga